iyo kaleexi iyo lolki darigiyo ilaabki hamaalabransado damrarka iyo baydi lamadeena diinka oo dhubkii dhex taagnaa waa kal kale iyo barnaamijkeennii hiddaha iyo dhaqanka dhegaystayaal soomaalidu dadka ay xurmayso noloshoodana kaalinta weyn ugu jiray waxaa ka mid ahaa wadaadka la yaqaanka ah ee dadka qur-aanka bara masaa-isha diiniga ah ee ku soo oodmana u faahfaahiya oo dadka wax badan ku ogeysiiya aad bay isaga xilqaami jirtay oo maamuuskiisa milgeyntiisa iyo muunayntiisuba waxay ahayd xil iyo waajib ay isi saareen waxaana muujinaya mahmaaha doora oo ay soomaalidu si weyn ugu faahfaahisay maskabka iyo martabada weyn ee uu dhexdeeda ku lahaa marka laga yimaado howlihii uu wadaadku qaban jiray waxaa qiimaba lahayd socodkiisa oo deegaan kasta oo uu yimaadaba wuxuu la tegi jiray wanaag balu fiirsa mahmaahdan lixlayda ah waxay odhanaysaa laba fadhigay ku wacan yihiin laba socodkay ku wacan yihiin labana nolosha ayay ku wacan yihiin aynu ka soo qaadanay intaan uga gol leenahaye laba socodkay ku wacan yihiin oo cirka iyo culimadu socodka ayay ku wanaagsan yihiin culimadu deegaan kasta oo ay timaado dadka waxay ula timaadaa waa wanaag way wacdiyaan oo aakhiro ayay xasuusiyaan dadka waxaanay uga digaan guuldarrada ay leedahay xuduudka alleh oo laga tallaabsadaa wadaadku halka uu joogaba dadka wuxuu xasuusiyaa ilaahay sidaa awgeed socodkiisa waa la mahadiyaa mar kale ayay soomaalidu waxa ay ka digtaa in wadaadka si fudud loogu adyadoodo oo aabi iyo kibir loola doonto iyadana waxa ay ku muujiyaan mahmaahda labalayda ah ee tidhaa abeeso dhulu eekibay kugu dishaa wadaadna dadu eekibuu kugu dilaa abeesada micideedu waxay kugu soo gaadhaa adigoo aan iska dhaadahayn ayay ciidda hoose kaaga soo murtigaahdaa oo miciyaheeda kugu qalacda wadaadkuna inuu dad yahay ha ugu degdegin ayay mahmaahdu ku faraysaa sababtoo ah wuxuu huwan yahay xurmo aada u weyn oo waxa uu ku yidhaahdo ee habaar ah waa suuragal inaanad ka kaban oo waxyeello doori dad iyo dunyaba ay kaa soo gaadho wadaadka kolka la sooryeynayo sooryadiisa ragga waaweyn ayaa isu xilqaamaa oo waata soomaalidu tidhaahdo sooryo wadaad sabi laguma haleeyo reerka uu wadaadku u soo hoydo habeenkaa martisoorkiisa waxaa qayb weyn ka qaataa ninka guriga oo cunta u keenidiisa iyo hadba kuwa qaaqaynta wuxuu wadaadkaasi u baahan yahay isagaa degta u ritaa oo dumarka iyo ubadka laguma sii daayo sidoo kale waxaa aada la isaga ilaalin jiray in wadaadku uu ku jaleeco oo looga jeedo wuxuu qoonsado inuu kugu arko waxaa iyaduna muujinaysaa mahmaahda saddexlayda ah waxay tidhaha soomaalidu habaar waalid jaleeco wadaad iyo wadar qodaxdeedba dhibtoodu ma hadho haddii waalidku ku habaaro oo uu niyadda kugu qabto waa suuragal habaarkaa waalidku inuu waxyeelo badan kuu geysto sidaa aawadeed waa inaad iska jirtaa oo aad iska dhowrtaa in waalidku uu ku habaaro sidoo kale soomaalidu waxay ku mahmaadaa saddex dhibtoodu ma hadho kalaam waalid kacdin abeeso iyo kuftin jilib saddexdaa dhibtoodu ma hadho oo haddii waalidku ku habaaro in ciribtaada adduun ay xumaataa waa suuragal sidaa awgeed waalidku waa inuu ducada ogaadaa
sababtoo ah sida habaarkiisu u kaco ayaa ducadiisuna ay u kacdaa oo Alle ugu aqbala. Jaleeca wadaad reerka jooga oo aan helin xurqoomkii iyo maamuuskii uu lahaa haddii uu reerka ka tago waxaa la yidhaahdaa ninkaa hebel wadaad baa wax ka gaadheen beri u soo hoyday oo aanu muunayn oo isna aayad dambe ma yeesho ama dhibaatooyin baa ninkaa haleela uu in doora ka naasnaasiyo. Wadar qodaxdeed iyadana waa la iska dhowraa oo bulsho haddii ay wax ku heshiiyaan inaad ka hor timaado oo aad caaridaa dhaqan ahaan Soomaalidu may jeclayn. wixii la isku waafaqo ee meel la wada dhigto in sidooda loo hirgeliyo ayay tixgelin iyo muunayn gaara siin jirtay oo qofku haddii iyadoo la fadhiyo oo xaajo adag loo joogo uu kaligii kaco waata ku muujisaa mahmahda lagu liidayo ee tiraahdaa nin shir ka kacay siiga yara. sidaa awgeed haddii meel la isugu yimaado arrin lagu gorfaynayo ha noqonin ruux ka qodax qaata oo waxaa la isku ogyahay khilaafa. wadaadku waxa uu lahaa darajooyin kala sarreyso oo mid kastaaba ay xurqoomkiisa leedahay. mar wuxuu ahaa macallin oo waa qof qur-aanka uun dhigtay waxoogaa mawliidana raaciya. waxaa ku xiga aw oo ah qof isna mawliidka kutubta axkaamta iyo qur-aanka haya, wadaad, xaaji iyo sheekh ama buuni. wadaadku waxa uu lahaa howlo badan oo uu bulshada uu ku dhex nool yahay u taro. qofka dhimanaya waa uu gunaanidi jiray oo inuu carabkiisa tawxiidka ku sugo ayuu kula dadaali jiray kolka uu alaaladaya ee qofka kaalka geeridu ku taagan yahay. kolka ay noqoto dhaxal iyo wax qaybsana waxa uu ahaa wadaadka wax u qaybiya. markay noqoto haddii xoolo lumaan bilbiliso ayuu u akhriyi jiray in neefka alla caymiyo oo aanu col iyo dugaag midnaba aanu ku sallidin. kolka colku ama baxayo uu u sii xirsiiyo nabaaddiina xili jiray si kolka ay tagaan halka ay ku socdaan ay guul iyo gobonnimo ula soo laabtaan haddii ay duulimaad yihiin oo ay hanti soo qaadayaan iyo haddii ay diriir gelayaan labadaba. wadaadka ishiisa iyo habaarkiisaba waa la iska ururin jiray, ducadiisa iyo wanaag samayntiisana waa la isku xilqaami jiray. markasta oo wadaadka la ixtiraamana waxaa la maamuusayaa waxa uu sido oo ah qur-aanka iyo xadiiska nebiga oo ah hanuunka kownkan alla uu inoo dhex dhigay ee ciddii qabsataana ay ku badbaado, ciddii ka baydhaana ay ku baado oo ay hogob iyo dalluun dheer ku siibato. maamuuska culimaduna waa mas-uuliyad saaran hadba bulshada ay ku dhex nool yihiin. sidaa awgeed waa in la maamuusaa, muuneeyaa, milgeeyaa oo laga ilaaliyaa ereyada sawliilka ah ee dhagxumada ku ah cilmiga ay sidaan oo ah hadalkii eebbe iyo weelihii rasuulka ee intuba ay ahaayeen waxyiga samaawiga ee alla inoo soo rogay. halkaas ayaynu ku saameelaynaa barnaamijkeenii hiddaha iyo dhaqanka. waa duubidii Sacad Axmed Caydiid iyo anigoo Mawlid Aadana. inta aynu kolkan oo kale ku kulmayno waxaanu iskaga tegaynaa nabaday iyo nooli kulante. iyo kaleexi iyo loolki darigiyo ilaabki hamaalabraasado damrarka iyo baydi lamadeena diinka oo dubkii dhex taagnaa